بسم الله الرحمن الرحيم runtii markii xildhibaanada loo xiro baarlamaanka waxaad garanaysaa inay laga maarmaan tahay in uu xildhibaanka baxo oo uu tago deegaan doorasheedkiisa laga soo doortay inuu tago si uu uga warqabo shacbigii wixii jira xaaladii asna uu warbixin u geeyo intii dee uu ka soo maqnaa reerkii uu baarlamaanka u joogay iyo wixii dowladda ay qabatay iyo waxay u baahan yihiin iyo waxay mataqaanaa uga baahan yihiin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba inuu sameeyaan marka waxaan tagay gobolka Gado waxaan ku hormaray magaalada Luuq anoo wafdi balaaran oo Turki ah wada ila socdaan mataqaanaa ganacsato kale oo Soomaaliyeed waxaanu ku guuleysanay alxamdulillah rabbil caalamiin inaan tagno mataqaanaa deegaanka Luuq oo dhan sida mataqaanaa magaalooyinka mataqaanaa ku dhow degmooyinka sida degmada Karaban iyo Cusbada iyo mataqaanaa miro dhuuba iyo zoonkeeda oo dhan iyo webiga markaas biyo keenay oo naloo geeyay runtii waan uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha degmada Ganay oo runtii si aad noogu soo dhaweeyay wafdiga anagoo dhan wafdi balaaran baan aad noogu soo dhaweeyay oo hadda noogu soo wareejiyay ilaa aan u tagno deegaan doorasheedka anagii oo dadweynihii culimo diinkii cuqaashi Soomaalida kulli aan kula kulanno deegaankoodii kadibna haddana aan Luuq kula kulanno waxaa intaa ii dheer marka oon rabaa oo arrintan waa ku mahadsantahay inaad ii warsatid hadda inaad arkaysid ma ogiye waxaan hayaa oo gacanta ku hayaa broshuurkan meeshaan ka soo qaaday meeshana lagu dejiyey oo aan degnay waxaa iskale hay-addan Trokera lahaa hay-addan waa hay-ad NGO international ah oo runtii ka howlgasha arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada gobolka Gado oo dhan weli ima soo maray I never ever seen such an international organization or the best service ever done to the Somali community marka waxa waaye we are saying actually we thank you very much waa idin mahad celinayna waxaan leenahay Trokera actually long life and they actually deserve better treatment they deserve better thanks they deserve actually whatever that Somali community is supposed to say Trokera inay noqoto because waa hay-adda qura ee tustay inay xataa bajaaji ambulance intay ka dhigto inay dadka service habeenimo 8 saac gabadha umulay Soomaaliyeed tuuliga intay ka soo qaado isbitaalka ay keento waa Luuq waa Trokera marka isbitaalka Luuqna ayaa gacanta ku hayo isbitaalka deegaanada zoonkaas oo dhan gacanta ayaa ku hayo waxayna diyaar u yihiin wali inay mataqaanaa samafal caafimaad oo dhan u sameeyaan waxayna gacan saar xoog badan la leeyihiin dowladda federaalka meel gaarka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka waan uga mahad celinayna runtii ragga takhaatiirta sida Dr. Maxamed iyo inta la midka ah oo runtii ka howlgasha meesha gudoomiyaha Ganina mahad celinayna shaqaalaha Trokera waxaan leenahay Trokera Soomaaliya waxaad samayseen something tangible or you deserve actually to be given a medal marka aad baan uga mahad celinayna marka dambe waxaan tagnay magaalada Doolow intii u dhaxaysay mataqaan Doolow iyo Geedweyne iyo meelahaasna waxaanu dadkii la sii kulannay si fiican baan loogu soo dhaweeyay magaalada Doolow gudoomiyaha degmada iyo madaxdii mataqaanaa gobolkaba si fiican bay noogu soo dhaweeyeen kadibna meeshaas ka soo duulnay waxaan runtii aan idin sheegayaa in gobolkaas Gado uu yahay gobol horumaray oo u baahan runtii in gacan weyn ay dowladda federaalka marka ay ugu soo taakulayso ugu sii dhiiriso si hadda tuulooyinka iyo degmooyinka aan soo sheego oo dhan sida mataqaanaa hadda degmooyinkan Karaban iyo Cusbada iyo Farseeley iyo mataqaanaa Ilaahu ku cadaabin miro dhooba iyo mataqaanaa Tuulaqaanjeer iyo meelaha hadda soo marno Boholgarasle Qoonay zoonkaas oo dhan waxay u baahan yihiin serviceska ay dowladda uga baahan in la gaarsiiyo waa maasantiin